Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal ahaantiinba kusoo dhowaada jimco wanaagsan barnaamijkeena Soomaalida Canada. Barnaamijka maanta Soomaalida Canada waxaanu kusoo qaadanaynaa bisha Ramadaan oo lagu wado in ay berri bilaabato. Jimco wanaagsan ayaan idhi waan yaro hor dhacay farxaddii jimcada soo gaartay baan u malaynayaa. Qormadeena waxaa inoogu martay haddii eebaha awoodda la yidhaahdana bisha Ramadaan iyo fadligeeda iyo waxyaabaha waajibka inoo sharaxi doono wixii su'aalahana aad soo weydiin doontaan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo sheekh cabdirasaaq xirsi oo ah imaamka masaajidka abubakar masalla ee magaalada calgary sida aad wada ogtihiin bishii ramadaan ayaa la gelayaa ramadaankani wuxuu noqonayaa ramadaan ka duwan ramadaanadii hore oo aan horey usoo arki jirnay siyaabaha uu uga duwan yahay iyo tallaabooyinka la doonaya in la qaado sheekha ayaan u daynayaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo barnaamijkeena wuxuu ku bilaabanayaa kelmado uu sheekha inoo soo jeediyo kadibna wixii su'aalaha ayaan u geli doonaa sheekh cabdirasaaq xirsi kusoo dhawow soomaalida canada marka hore asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وادوه ومحسنتين جامع iyo soomaalida Canada oo dhan adiga mudan jazakallah waqtigaaga waxaan barnaamijka haddii ilaahay raadi ku qaadaa dhigi doonaa bisha ramadaan marka falyatafadal sheekh inta aanan su'aalaha u gelin adiga ayaan kuu banaynayaa darka الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد marka ugu horeysa ramadaan kariim ramadaan mubaarak meel kastoo aad joogtaan waxaan leeyahay ahillahu calayna bilamni waaliimaani waasalaamati waalislaam ilaahay subxaana wa tacaala hayna ka dhigo kuwii ka faa'iida bishaas barakaysan iyo barakadeeda marka koowaad soomku xukmuhu waa waajib macnihiisa soom marka luqadda la fiiriyo waa in laga gaabsado hadalka marka shariicada la eegana waa in laga tago muftiraadka iyo shahawaadka maalintii marka fajarku dilaaco ilaa ay qoraxdu ka dhacdo lillahi subxaanahu wa tacaala looga tago bisha ramadaan la yidhaahdo arrintaa iyada ahi waa xukumkeedu waa waajib fardu caynin calaa kulli caaqilin muslimin baaliq muqiim qaadir intaasoo shay baa laga rabaa qof kastoo muslina oo qaangaara oo caaqil ah oo muqiim ah oo gurigiisii jooga oo haddana awooddeedii leh shantaa shardi qofkii kulansada soomku waajib buu ku yahay cayntiisu waajib ku yahay shakhsiyan buu waajib ku yahay markaan nidhaahno muslim gaal waajib kuma aha markaan nidhaahno caaqil qof majnuuna ama aan maskaxda aan dhammayn laguma laha markaan nidhaahno baaliq saqiir laguma laha ee waa qof qaangaara muqiim markaan nidhaahno qofka musaafirka ahi wuxuu leeyahay choice hadduu rabana wuu soomaya hadduu rabana wuu afurayaa markaan nidhaahno magaranaysaa qaadirna waxaa ka baxaya qofkii aan awoodin ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ayaaman macduudaat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن dadka ilaah rumeeyayo waxaa laydinku waajibiyey soom sidii loogu waajibiyey dadki idinka horreeyey lacalakum tattaquun waxaad mudantihiin inaad ka faa'iidaan cabsida alle subxaana wa tacaala ayaamo tirsan oo 30 cisho ama 29 cisho ah ayaa macduud faman kaana minkum mariidan aw calaa safar qofkii jiran iyo qofkii safar ah oo aan muqiim ahayn laguma laha waxaa lagu leeyahay markaa way afuri karaan maalmo kale qallaynaya yaman ukhar ayay qallaynayaan maalmo kale ayay soomkii ka tegey maalmaha jirada kaga tegey ama safarka kaga tegey laga rabaa inay soo celiyaan wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin qofkii aan awoodin isagu oo soomku ku adag yahay on qaadir ahayn qofkaa isagana waxaa laga rabaa ma garanaysaa inuu quudiyo hal qof makaankii iyo booskii maalintii uu soomi lahaaba maalin walba soonkeedii
hal qof oo cunto hal mara uu ka dhargo la siiyo ayaa u gudaysa oo kafaynaysa khasab maaha qofkaas inuu qof sooman yahay oo la afuriyo waxa weeye waa qof miskiin ah baa ilaahay subxaana watacaala sheegay qofkana wacala aladiina yutiiquna fidyatun طacaamu miskiin inuu cuno hal mar bay isku furanayaan oo maalintii ku bedelanayaan dadkaasi waa dadka waaweyn oo magaranaysaa da'da gaaray oo aan xamili karin waxaa ka mid ahoo soo gelaya dadka maradka alladii laa yurja bar'uhu aan laga rajo qabin inuu ka baaba'o cudurrada joogtada ah oo coroniga la yirahdo ama sokorta oo kale iyo wixii lamid ah qof aan soomi karin xanuunkiisana aan la rajaynayn inuu ka baskoodo dadkaas iyaga ahi fidyay bixinayaan halkan waxaa lagu daraa oo fuqahadu ay ku daraan gabadha dhalmada wadda oo yar oo sanad kasta dhasha sanad dhaaf dhasha sanadkaana way sidaa uurkii bay sidaa ilmihii bay caloosha ku sidaa way adagtaa inay soonto sanadka dambena ilmihii bay nuujinaysaa ramadaankii marba wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo mashquul ku ah ilmaheedii ramadaankii kalaa raacay kii kalaa raacay kii kalaa raacay waxaa laga yaabaa 5 ilmood inay isku xijiso ama 6 ilmood oo min 2 sano ah hadday isku xijiso 12 sannadood aysan soomi karin oo macnaha ay saa ku socoto 2 sano ugu horreeya markay arkaan inay 2 ilmood ugu horreeya wixii inaysan soo daba socdaan ay arkaan iyaguna inay fidyo bilaabaan baa fiican calaa arjaxi alaqwaal gabadha xaydka qabta iyo gabadha markaa dhashay umusha ah looma ogolo xaaraan buu ka yahay soomku xilligaas ay ku jiraan ciddadaas ay ku jiraan ama xaydka ama nifaaska laakiin labadaba waxaa laga rabaa inay qalleeyaan intaasi waa waajibnimada soomka soomka waxaa lagu ogaanayaa suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi waxaa ku soontaan aragtida bisha waxaadna ku afurtaan aragtida bisha fa in gumma calaykum fa akmilu lciddata 30 ama ciddata shacbaana 30 riwaayaad kala duwan haddii laydinka qariyo aad arki weydaan markaas ramadaan bisheedii aad arki weydaan sida hadda dhacday oo kale shacbaan kaamila oo 30 ka dhiga 30ka markay dhammaato waa la hubaa maalinta ku xigta inay tahay ramadaan waana jimcada beriya annaga galab baan ku jirnaa berri bay noo tahay galab khamiisaan ku jirnaa saas oo kale fadliga soomka waxaa ku soo arooray axaadiis tiro badan laakiin waxa ugu waaweyn waan kusoo koobayaa shayaadiintii waa la xiray albaabada jannadoo dhan waa la furay albaabada naarta waa la xiray yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya ashari aqsir baa malag yiraahdaa habeen walba ama maalin walba oo ramadaan ah malag baa wuxuu ku qayliyaa qofkii khayr doonahoo soo soco qofkii shar u socdayoo warka joog shaydaankiina waa la xiray iyo marada tuhum kuwa madaxa adagoo tirada badan oo waaweyn oo dhan waa la xirxiray yaryarkii unbaa la daayay waxaa la yidhi qofka sooman idaa kaana sawmu yowmi axadikum falaa yaskhab walaa yajhal qofka soomani markii uu waa bariisto yuusan jahli samaynoo dadka yuusan ku xadgudbin dhawaaq iyo qaylo iyo ciyaar suuqnimona yuusan ku kicin fain shaabahu axadun fain shaatamahu axadun fain saabahu axadun aw shaatamah hadduu qof la diriro ama caayana falyaqul inii saa'im maratayni aw 3 waa soomanahay ha ku yiraahdo sooma arkaysa waa soomanahay ha ku dhaho qofkii la dirira qofka wuxuu yidhi nabigu sal ll ly slam xadiis alqudsiya ilaahay wuxuu yidhaahdaa kullu camal ibni aadam lah ila asiyaama fa inahu lii wa ana ajzi bihi camalka bini aadamka uu samaysto o dhan isagaa iskale soomka marka laga reebo anaa iskale anaana ka abaalmariya oo ilaahay ma uusan acmaasha kale lahayn maxay tahay xigmadda ku jirta maxaa magaranaysaa macnaha ku jira ay tahay culimadu afkaar kala duwan bay ku sheegeen qaar waxay yidhahdeen waa qarsoodiga uu qarsoon yahay oo sir uu yahay oo aan la garanayn qofku inuu sooman yahay iyo inuusan soomanayn been waa sheegi kartaa laakiin gurigaaga intaad tagtaad biyo iyo cabbi kartaa cuntana cuni kartaa cid ku ogna male sirtaas marka sincerityga ama ikhlaaska waxa la yidhaahdo baa ku dheehan culimaa tiri culimo kale waxay yidhaahdeen waana qowlka aniga ila rajaxan shaydaanka iyo qofka waxaa ka dhexeeya siraac sanadkao dhan camal kastoo uu galana way isku haystaan camalka salaada iyo markuu ku jiro shaydaanku waa cararaa marka la adimo haddana waa soo noqdaa haddana marka la aqimo cararaa haddana markuu dhammaado soo noqdaa safafku kala dhex galaa dadku mashquuliyaa
dagaalkaas siraacaasa ka dhexeeya laakiin soonka waa laga xiray shaydaanka isaga yaa la rabaa marka inuu ijtihaado dadaalo maadaama jaanis la siiyey oo laga xiray shaydaankii marka insha allahu tacaala waxaan kusoo koobayaa bishaani waa bishii qur'aanka waa bishii ducada waa bishii sadaqada masaakiinta ha la ilaaliyo masaakiinta ha la quudiyo masaakiinta wax ha la taro khaasatan sanadkaani sanad ka duwan weeye sida uu sheegay walaalkan jaamac ma ayna arag ramadaan guryaha lagu xaniban yahay masaajidadii oo dhan ay xiran yihiin macaa xaramkii xarameynkiiba ay xiran yihiin ma ayna arag kana inoo ku horeeya taariikhda way dhacday marar badan in wabaa intuu dhacay xaramka iyo la xiray laakiin wabaa caam ah oo adduunkoo dhan hal mar wada xiray ma jirin masaa'il baa ka dhashay arrintaas oo cusub iyo arrin kaloo cusub oo ah technology in la haysto aniga iyo jaamacadda waan sheekaysanaynaa islamana joogno laba magaalaan kala joognaa si caadi aan isugu jeednaa isu maqlaynaa u sheekaysanaynaa idinku hadda waana daawanaysaan caalamka daafihiisaad kala joogtaan cawlama waxa la yidhahdaa dhacday oo technologygu adduunkii wuxuu ka dhigay hal magaalo wax ma ka bedelayaa axkaamtii iyo fiqigii I believe anigu saan aaminsanahay wax kasta oo soo cusboonaadaa ijtihaad bay u baahan yihiin iyo culimmadu inay eegto oo dib loo fiirsho technologygani wuxuu soo kordhiyey waxyaaba aan jiri jirin oo ah xilligii fuqahada iyo madaahibta iyo culimmadii salafku ay joogeen waxaan jirin buu soo kordhiyo ah imaamkii inaad la sheekaysan kartid isagoo masaajidkii jooga adigoo gurigaagii jooga inaad salaaddii ku xirnaan kartid oo aad u jeedid maqal iyo muuqaalba oo si caadiya aad isu daawanaysaan ma arkaysaa I believe taraawiixda in lagu tukado guryaha iyadoo la joogo salaada masaajidka in lagu xirto nin walba masaajidka localkiisa ah in looga sameeyo magaalada uu degan yahay oo xuduudda aan laga bixin oo aan la oran xaramkaan la tukanaya ama qof america joogaan la tukanaya ama qof yurub joogaan la tukanaya inaa kale waqti tihiin waa arrin aan salaada loo ogolayn salaadu awqaad bay leedahay marka waxaan aaminsanahay inay soo korortay arrintaasi buuq bay kicisay laakiin anigu madhab ahaan saasaan ku qanacsanahay madhabkaasaan taageeray labaa la isugu khilaafay qolana waa diiday qolana waa aqbashay marka anigu taasaan waafaqsanahay insha allahu tacaala soo dhowow jaam جزاك الله شيخ عبد الرزاق حرسي إمامك مسجدك أبو بكر مصلى كالجري سؤالها ددوينها وأوتي دونا وحد عربك كل فتي كل دونا جهة رمضان الذي أنا صور عفني كان حدا أنكو جرنو وحد نشاكتي إن هوري ودعي جرتي لكن هذا وقت جينان يمد عامة ودون كودون كودعي وكان يهي مركا maxaad is leedahay way la gudboon tahay muslimiinta khaasatan dadka soomaalida oo dadka qaar yidhahdaan aad baan u madax adagnahay waxaa laga yaabaa isbeddel iyo awaamiir cusub haddii culummada iyo dowladda ay soo rogto in ay waqti badan nagu qaadato inaan yeelno oon ka dhaga adag waxay ila tahay dadku inay diinta ilaahay ay bartaan horta macnaha diinta in la fahmaa muhiima macnaha diintu waa masaalixda ummadda iyo dadka iyo qofka muslimka ah maslaxadiisa in la ilaaliyo maslaxadaadu waxay ku jirtaa badbaadadaadu ay ku jirtaa gurigaaga inaad joogtid adigu inaad safe ahaatid baa uga muhiimsan ilaahay subxaana wa tacaala inaad jamaacaad ka xaadirtid marka masaajidada in la xiro dadkuna ay guryaha ku tukadaan si aan marka loo kala go'in badiilkii laysu imaan lahaa maadaama la yidhi social distance hala sameeyo hala kala joogo hala kala durko hala isticmaalo technologyga yani waa masaalixdii oo dhan bay jamcinaysaa masaladaasi ra'yi ahaanna labada ra'yiyo culimadu ay leedahay ra'yigaasaa ila rajaxan oo xoog badan marka number one guryihiina jooga safena ahaada caruurtiina iyo reerkiina iyo ehelkiina iyo qaraabadiinana u tura marka labaad qodobka labaad iska warhayo isu naxariista oo hala iskafaalo qaado 100kii guri 50kii guri ha iska warhayeeno qofkii ma garanaysaa dabku ka damo dad badanoo waxaa jira aan ku noolayn lacag ay haystaan oo meel u taalla oo ah xoogsato maalintii u shaqa taga suuqa oo waxay soo helaan ku nool dadka iyaga waa in laga warhayaa gacanta lagu hayaa aan la isku dhexdiinna inaan lagu baktiyin qofka waxaa dembi ugu filan buu yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu dhergo dariskiisuna uu baahan yahay dembi kuu haray ma jiro dariskaaga ka warhay ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه buu yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam qof waxaan ka yaabay buu yidhi suu igula dardaarmayo kama uusan zuulin inuu ii sheegayo dariska iyo xuquuqdiisa iyo inaa ilaaliyo
ilaa aan kaba baqay inuu yidhahdo way isdhaxlayaan derisku markii dambe. nebigu sal alla alay slam wuxuu yidhi mar qofka deriskiisa dhibkiisa ka magangeli waayo mu'min maaha, iimaan ma leh. soo ma arkays marka iska war haya. qodobkaasna waa qodobka labaad. qodobka saddexaad, dadka ganacsatada ah iyo dadka siyaasiyiinta iyo dowladda ah oo lagu daray intay iskaashadaan lagu daray dadka qurbaha jooga, aynu isu xilqaano inaan ma garanaysaa aynu dadkii waddankeenna aynu ka nimiyo dhibaataysan oo guryaha lagu xiray oo fakriga ah oo waxba haysan inaanaan dhergine aanu wax kula noqono oo wax ku celino oo dadkii ma garanaysaa aynu u abaabulno sidii lacag loo gaarsiin lahaa. صح جزاك الله شيخ. waxaan galaynaa hal daqiiqo oo ogeysiis ah. daawadayaal sida aad la socotaan waxaa jiro bisha ramadaan walaal afuri waa walaalay Soomaaliyeed oo muddo dheer qurbaha ka aruurinaya xilliga soonka inay afuriyaan dad walaalaheena oo dalkii hooyo joogo. annaga reer Alberta barnaamijka waxaa wado Xakiinkey oo reer Edmonton Calgary waxaa qaabilsan Casuus Axmed. walaal afuri 7@gmail.com ku dara wixii sadaqadiina qofkii hal qof afurinayo waa $30, qofkii laba afurinayo waa 60, kii saddex waa 90. 30 umaad ku daraysaan tirada mar walbo. afuriya walaaladiin la wadaaga walaalihiin afurka. sida aad la socotaan barnaamijka waxaa inoogu martaa sheekh cabdi xirsi oo magaalada Calgary imaamka Abubakar Masala ah. jaamac codkaagii laguma maqlaayo. waayahay waan ku maqlnaa annaga adi may maqashaa? haddaa lagu maqlayaa. ha jazaak allah. marka waxaan u gelaynaa dadka na daawanaya su'aalahooda. su'aalo qaar hadda waa la soo diray. waxaan kaloo la socodsiinaynaa daawadayaal wixii su'aala oo ramadaanka iyo COVID-19 iyo diinteena ku saabsan sheekha waad soo weydiinaysaan waana u gudbinaynaa su'aashiina xabad inta aanu ka gaarno. sheekh marka dad badan oo halkan jooga waxyaaba yar oo waxay isweydiiyaan salaad soonka ma jebinaya qof sooman haddii uu shaybaar aado oo dhakhtar u diro inuu dhiig iska qaado uu rabo iyo waxyaabaha la midka irbadda qofka lagu duraayo iyo soonka ma jebinayaan? bismillah. horta si guud aan u sheego waxyaabaha muftiraadka ah. waxyaabaha soonka jebiye waxa weeye wixii cunto ah ama cunto macnaheedii leh. cunto waa la yaqaan waa wax afka laga cuno. waxa cunto macnaheedii leh in xididada lagaa siiyo nafaqo iyo biyo iyo dhiig badan iyo lagugu shubo oo aad nafaqowdo oo jirka la siiyo wixii uu markuu cunto cuno uu ka heli lahaa oo nafaqaa la siiyo marka uu qofkii nafaqadii ka maarmi karo cuntaa la yidhaahda. cunto iyo wixii macnaheed leh lama ogola. waxaa kaloo lagu afuraa cabid iyo wixii macnaheed leh. waxaa kaloo lagu afuraa jamaac iyo shahwadiioo la guto ayaa lagu afuraa. waxaa lagu afuraa inuu qofku kas isu matajiyo. waxaa lagu afuraa oo khilaaf ah inuu qofku istoobo oo dhiig toobid intuu isku sameeyo magaranaysa xijaamo la sameeyo laga qaado dhiig badan. waa masale khilaafiya. waxaa hadda aad weydiisay oo ah dhiig yar oo faxsi oo qofka laga qaado baaritaana, irbad xanuun oo qofka lagu dhuftay, midda magaranaysaa sokorta qofkii aan cunto cunayn laakiin sooman oo irbadii isku dhufanayo raba inuu regulate gareeyo dhiiggiisa, ama irbad daawa isku dhufanaya. waxaasoo dhan waa la ogol yahay. waxaa la ogol yahay daawada afka laga qaato oo neefta ah oo loo qaato asmada buufiska ah bafarka la yiraahdo ma jebiso. wax alla wixii aan cunto iyo cabid iyo shahwo iyo macnahoodii aan ahayn waa lagu ogol yahay inaad ku dhaqantid. waxaa kaloo aan soonku uusan ku jabin cunto iyo cabid nisyaan iyo ilow lagu cunay. haddaa ilowdid oo cuntid, haddaa ilowdid oo cabtid, ilaahay baa ku quudiyey, ilaahay baa ku waraabiyey, soonkaagiina waa wadanaysaa. matagu hadduu soo dhaafo isagu aad iska matagtid laguguma laha, waad wadanaysaa maalintaadii. haddaadan hayn karin oo gaajo darteed aadan la hayn karinna waada furaysaa adoo aan dambi lahayn, maalin kale aad khallaynaysaa. wallahu aclam. waa tahay sheekh aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. su'aalaha waxaa dadka ay soo gudbiyeen. su-aasha koowaad waxaa weeye ayaan konga ayaa soo gudbisay
waxay leedahay umusha goormee ayay qalaynaysaa sheekh oo soon horena lagu leeyahay marka waad ka hadashay oo waad ka soo hadashay bal hadda ayaan su-aashaasii qabtaa waa saas gabadha umusha ah haddii ay xiriir tahay arrintu oo sanad walba sanadna ay umul tahay sanadna ay magaranaysaa uur leedahay magaranaysaa aad bay ugu adkaanaysaa inay sanadka soonto markii 3 sano 4 sano hadday isgaarto ka badan ama 5 sano ay isgaarto qof 5 sano soonkeedii qallayn kara oo 5 bilood oo isku xigta soomi karaa ma jiro aad bay u adag tahay qofkaas noocaasi video bixinayaa maalin walbo soon ahayd bedelkeedii qof buu cunto siinayaa marka 4 sano isku xigta uu arko inuusan soomi karin welina wixii soo socdaan buu bilaabayaa inuu marka iska bixiyo cuntadii iyo wixii laakiin haddii ay hadda uun dhashay hadda ay umul tahay sanadka kale oo dambe ramadaanka ah intaan la gaarin bay qallaynaysaa hadday awoodo hadday weli nuujinayso ilaa ramadaanka kale la gaaro ilmihiina ay u baqayso nafteedana ay u baqayso maadaama ay nuujinaysa aysan soomi karin markaasna waxa weeye waxay ku dhacaysaa sanadka ku xigay u gudbinaysaa laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay subxaana watacaala diinta cusri kama dhigin wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj marka lagu adkayn maayo laakiin haddii qofku awoodo sida ugu dhaqsaha badan buu u qallaynayaa sanadka dambe intaan la gaarin wallahu dadka marka ay lacagtaa iska bixinayaan shuruudaa jiro oo maalan halkan qofka joogo hadduu qof afurinayo iyo dalkii hooyo hadduu qof afurinayo oo inta lacag diro uu dad u gudbinayo uu leeyahay qofka iga afuriya qofkaasi maxaa looga baahan yahay asaga iyo qofka wax afurinaya inay ka wada hadlaan oo shuruudaho in la buuxiyo ay tahay wax shuruuda kuma xirna qof la afurinayana khasab maaha afurku waa ugu fadli badan yahay maadaama qof sooman aad hawshiisii qabanaysid oo yani aad sabab u noqonaysid inuu soomo aad sabab u noqonaysid ajarkii soonkana aad helaysid laakiin miskiin baa aayaddu tiri طacaamu miskiin cunto la siiyo mid qof xanuunsan baa la siin karaa qof waayeelaa la siin karaa qof aan soomin oo magaranaysaa iyadoo aan soomba ahayn baa la bixin karaa sidaa darteed khasab kuma aha inuu noqdo qof la afurinayo shardi kale oo ku xiranna ma jire qof uun muslina in cunto la siiyo oo miskiin ah shardigu waa intaa hadda barnaamijka waxaan xayeysiinaynay oo dadka la wadaagaynay mashruuc la yidhahdo walaal afuri oo waayadanba waqooyiga america iyo yurub ka socdo oo dad isxilqaamaya soomaaliya ay sameeyaan qofka aan soomaynin ee lacagta iska bixinayo ma ku darsan karaa mashaariicda noocaas oo dadka muslimiinta ay wadaan oo isagu uusan maamulkeeda lahayn inuu qof afuriyo iyo in kale laakiin sadaqadiisa halkaas ma ku darsan karaa nacam waa isaga iyagu aaminayaa iyagaa xilku saaran yahay inay markaas sidii loogu dhiibay ay u gudbiyaan inaysan meel kale u sarfine ay dad ku nooleeyaan oo dad cunto ku cuno ma $1 baa lagu cunayaa marka maalintii $1 bay yidhahdeen ha dadkaas marka $1 qofkii isagu ku qancaa inuu $30 aniga way la yar tahay laakiin qofkii ku qancay inay $30 ku filan tahay hadday iyagaa yaqaanay fas'al bihi khabiiran baa layidhi qofka khabiirka wax weydiiye muddana ay wadeen ay ku filan tahay iyagana mas-uuliyadda iyagay dushooda saaran tahay amaam allah iyagaa la weydiinaya laakiin qofkan waxba lagama rabo hadduu ku darsado khalaas waa ka dhammaatay sheekadii waaya sheekh cabdirasaaq aan usoo noqono coronaviruska iyo masaajidka masaajidyadu howlo badan bay dadka u hayeen dadka bulshada ayagaa isku hayay ramadaanka oo kale meesha lagu kulmaayo oo de qof asaga qofkiisa ama saaxiibkii ama ehelkiisa maalin gurigiisa ku casuumay moogiye meesha la isugu imaanaya masaajidku ahaa maxaa bedelayo maxaa la samaynayaa ramadaankan waxaa ugu sahlan dhanka cibaadaadka dhankii isku xirnaanta waxaa jira dad volunteers ah oo ay hay-aduhu tababarayaan waxaa la siinayaa course red crossku ay bixinayso siduu isu ilaalin lahaa dadkana uusan isaga ilaalin lahaa inuu ama dhib u geysto hadduu cudurkii isagu sido cudurkaana wuxuu kaga duwan yahay cudurrada kale oo baqdintiisa aad u badiyey qofkii markuu sido iyo markuusan sidin lama kala yaqaan hadduu sido hadduu rabo maba jiranayo cudurkiina wuu faafinaya dadku ku faafinayaa
waxaa laga yaabaa jirkiisu inuu iska difaaco isaga laakiin uu qaybinayo dadka u qaybinayo oo faafinayo sidaa darteed isu imaanshihii aad iyo aad iyo aad bay u adkaatay masaajidada marka waa la xirayaa see loo wadayaa islaaxii kale dadka iyaga ah oo magaranaysaa la tababaray oo muslimiinta muslixiinta ah ayagaasaa marka waxaa la barayaa inay dadka xanuunsan iyo dadka nafaqada u baahan iyo magaranaysaa dadkii masaajidka uu taageeri jiray iftaarka loo samayn jiray inay gaarsiiyaan magaalo walba waxaa la rabaa inay iskeed soo xilqaanto annaga qolada communityga dhalinyaro ah baa shaqaynaysa ilaahay xifdiyo magaalo walba waxaa la rabaa inay tiim soo baxaan shaqeeya oo iyagu dadka qofkii aan waayeela oo keligiisa iyo qofkii xanuunsan oo keligiisa iyo qofkii magaranaysaa fakri oo aan lacag haysan oo cunto aan haysan cunto heli karin inay cunto ugu geeyaan gurigooda shalay waa laysoo wacay waxaa laygu yidhi ma lagu keenaa cunto aniga marka waxaan waa fiicanahay alxamdulilah ilaahay haydin barakeeyo u geeya dadka masaakiinta oo baahan marka waxaa la rabaa in layskafaalo qaado masaajidadu shaqaday qaban jireen waa la catilay waa xiran tahay laakiin muslimnimadii lama catilin oo lagama bixin sidaa darteed waa lays caawinayaa waxaan rahnaa maalin walba markaan cashirka akhriyayno haddaad dhib qabtid kaalgelina joogtidna soo wac markaas waxaan ku xiraynaa dariiqada ugu sahlan oo uu qofkaasi wax ku heli karo insha allahu tacaala sax jazaak allah sheekh dhinaca kale dadka furitaankaadii baad ku bilowday waxaad tiri cibaadooyinkii ramadaanka waa la wadayaa khaasatan taraawiixda marka bal arrintaa taraawiixda faahfaahin ka bixi sidee qof gurigiisa joogo iyo masaajidka isugu xirmi karaan oo salaadii u tukan karaan waxaan samaynaynaa insha allahu tacaala live facebook baan gelinaynaa taraawiixdii baan tukanaynaa intaas marka magaranaysaa magaalada nala joogta oo nagu xiran oo isku saacadda nahay oo isku xuduudda nahay oo noo dhow salaadii waxay ku xiran karaan intay hortooda dhigtaan taleefonka ayay salaadii imaamka raacayaan waxaa dhici karta inuu taleefonka go'o khadku uu xirmo mar hadday saa dhacdo sidii markii masaajidada aan joogno oo masaajidada waa aragteen marar badan baa qolal gaara oo iskood u madax bannaan oo albaab laga gala leh oo imaamka aan loo jeedin qof u jeedana aan loo jeedin lagu tukadaa hoolal masaajidada weliba khaasatan waa weyn oo kale mar baa underground lagu tukadaa mar baa dabaqa sare lagu tukadaa imaamkana aan loo jeedin maxaa la sameeyaa mikrofon baa laga dhegeystaa haddii marka mikrofonku go'o oo codku tago waad goosanaysaa salaaddii waad ka goosanaysaa adaa dhammaystiranaya kadib haddana waad isku dayaysaa inaad livekii kusoo noqotid oo la wadatid saasaa ugu tukanaysa hadday kuu suurtoobi weydana keligaabaa tukanaysaa waxaa fadli badan inuu qofku keligiis tukado oo gurigiisa ku tukado hadduu jamaaco helana jamaacadiisa gurigiisa iyo ehelkiisa iyo carruurtiisa uu la tukado dad badan baan awoodi karin oo qur-aanka baan akhriyi karin oo ay ku adag tahay dad badan baa waxay u tahay motivation iyo maaragtay encouragement ay u tahay maaragtay in la dhiirigeliyo inay markay jamaaca arkaan tukada dad badan baa ramadaanka uun tukada waad ogtihiin dadka iyaga ah haddii ay waayaan wax dhiirigelina iyo xafi iyo magaranaysaa boorin ay waayaan waxaa laga yaabaa inaysanba tukan marka guriga masaajidka ugu dhow buu fiirsanayaa haddii ay jiraan wadaadadaasina ay ku qanacsan yihin inay faafinayaan salaadii ay babligi u tukanayaan oo dadku ay halkaa ka arkayaan fa biha wa nicmat haddii kale haddee nasalullah salaamata keligiisu tukanayaa iyo gurigiisa iyo ehelkiisa iyo inta isla joogtaa isla tukanaysa waayahay jazaak allah sheekh gabar ayaa waxay soo qortay su-aal waxayna tiri walaalkay oo xanuunsan ma ka soomi karaa marka waxaan weydiiyey adiga yaa kuu soomayo marka bal intay jawaabtaa kasoo jawaabayso qof kale ma ka soomi karaa qofkii dhinta ayaa laga soomaa man maata wa calayhi siyaam saama canhu waliyuhu buu yidhi nabigu sal alla ly slam kama qaala calayhi salaatu wasalaam qofkii dhinta oo soon lagu lahaa weligiisaa ka soomaya laakiin qof nool lagama soomo hadduu jiran yahay laba nooc midkood weeye jiro la rajaynayo inuu ka baskoodo sanadkan hadday dhaaftay sanadka dambe aysan dhaafayn markuu ka baskoodu isagu iska qallaynaya haddii nooca labaadna waa jiro daa'im ahoo sidii qof paralysa iyo qof sokor qaba iyo qof magaranaysa cudur karooniga uusan ka kacayn qaba oo aan la filayn inuu ka baskoodo qaba qofka noocaasa waa qofkaan sheegnay wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin qof bay ka quudinaysaa gabadhu walaalkeed
maxaa yeelay iyadaa soon lagu leeyahay oo maalinta ramadaanka ah soonkeedu waajib ku yahay marka makeediiba intay turtay isaga kiisa u soomaysaa maya bacda soom isaga ma u qallayn kartaa isagiyo nool maya qofkii dhintay xajka iyo soomka iyo sadaqada iyo zakada intaba waa laga qallaynayaa oo waa laga bixinayaa ama hadduu nool yahay maya waa tahay waxaan gaarnay xilligeenii gabagabada marka waxaan rabaa inaan ku siiya adiga oo aad dardaaran kusoo gabagabayso tafadal sheekh iclaan yar ma sheegi karnaa jaamaco ha sheekh tafadal berito markay tahay xilliga alberta markay tahay 11 subaxnimo ama 5 saac oo subaxnimo eastiguna uu yahay 1 duhurkii ka hor oo beriyo jimcaha waxaan leenahay oo aan gelaynaa live culimo koox ah oo uu ka mid yahay sheekh cabdiraxmaan bashiir ottawa sheekh axmed nuur seattle sheekh maxamed idris oo jooga istanbul turkiga sheekh sancaani oo jooga magaalada minneapolis iyo aniga ayaa waxaan soo wada gelaynaa live muctamar baan samaynaynaa 2 maalmood inuu socday u badan tahay ama 3 waxaan kaloo samaynaynaa soo celcelin usbuucyada soo socda iyo ramadaanka marar badan baan isku xiranaynaa insha allahu tacaala dadkana wixii su'aala qaba iyo wixii magaranaysaana waa ka hadlaynaa waxaan kaloo ka hadli doonaa sidii dadka waddankeenii jiray loo caawin lahaa oo dadka qurbuhu ay uga qayb qaadan lahaayeen walaalahood oo guryaha lagu xanibay inay badbaadaan oo ka badbaadaan xanuunka islamarkaasna ay helaan waxay quutaan oo quutulyoonkoodii ay helaan arrimahaasaanu insha allah ka wada shaqaynaynaa la socda intaadan dardaaranka gelin gabadh baa walaasheena waxay soo qoratay su-aal marka su-aashaasaan rabaa inaan kuusoo gudbiyo waxay tiri soon hore haddii uu kaa tegey soon kalena uu soo galo adoon soomin kii hore maxaa waajib ka noqonaya soonkii hore culimmadu way isku khilaafsan yihin masaladaas qaar baa waxay yidhaahdeen waxaa laga rabaa inay qallayso cuntana bixiso laakiin sida raajixa jamhuurtu qabto qallihii baa lagu leeyahay iyo qofku inuu toobad keeno oo ilaahay subxaana wa tacaala yidhaahdo astakfirullah allahuma innii atuubu ilayka ilaahay u toobad keeno uusanna u noqon mar dambe lama ogola soonkan ku dhaafay sanadkan inuu sanadka kale kula galo lama ogola saa darteed haddii aad ka gaarsiin weyday oo ay kugu timi oo haddaad cudurdaar sharciga lahayd haddii dembi ma lihid haddiise tasaahul uu kaa dhacay oo aad iska sahlatay maalan qof baa musaafir ah sanadkao dhan qofkaas cudurdaar sharcigu leeyahay dembi ma leh laakiin qof baa gurigiisa isagoo jooga iska daayay kaasi waa ku dhacay dembi buu ku dhacay labadaas ku xukun maaha qofka marka waxaa la rabaa inuu toobad keeno soonka dambe marka intaan la gaarinna uu sanadka dambe uusan kusoo gelin oo iska qalleeyo su-aal kale ayaa timid aanu fiirino bal inaan su-aalahan aan ka gaarsiino assalaamu calaykum sheekh waa ku salaamayaa salaan kadib waxaa jaar ila ah qof curyaan ah oo ninkeeduna uusan meelna uga shaqo tegi karin kuna adag tahay nolosha waxaa saasna uma qaban karo oo ma dhaamo marka waxaan idinka codsan karaa inaad faatixada u martaan inuu alla wax noloshooda waa waxbaa u dhiman oo uu soo wadaa baan filayaa marka faatixada in loo maro in ilaahay noloshooda u maareeyo oo xaalad fiican siiya ayuu yidhi marka waa jazakallah walaalkay cabdiraxmaan muuse sheekhaan u daynaya arrintaas allah u fududeeya ilaahay subxaana watacaala muslimiin badan baa dhibaataysani intii dhib qabta dhibka allah ka qaado ilaahay risqiga oo laysku ciriiriyo imtixaankay ka mid tahay wanabluukum bishari walkhayri fitna labada jeerba marna waa lagugu badinayaa oo imtixaan baad ku gelaysaa marna waa lagugu yaraynaya imtixaan baa iyaguna ha sabreen dadka muslimiinta oo dariska la ahna ha caawiyeen dadka ha ka warhayeen waa la isweydiinayaa dadkaas nebigu sal alla ly slam caaisha wuxuu ku yidhi yaa caaisha macruufka ha yaraysan buu yidhi ha yaraysan walow bishiqi tamra timir jeexeedba ha ahaatee marka inaadan wax badan u kari karin baa laga yaabaa laakiin koob maraqa aa siin kartid inaad magaranaysaa xabad timira siin kartid xoogaa bariisa oo koob ku jira inaad siin kartid shaah inaad siin kartid waxa awoodid la qaybso u sheeg awooddaada inay inta tahay waxaad tari kartidna tar ilaahay subxaana wa tacaalana u bari inuu dhibka ka saaro asxaabtaada iyo qaraabadaada iyo dadka kuu dhow dhowo dariska ahna ku dhiirigeli
miskiinka in wax la siiyo waajib weeye walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin dadka ara'aytaladii lagu sheegay oo ilaahay yiri naar bay gelayaan bay ka mid yihiin dadka aan masaakiinta cuntadooda boorin marka dadka agagaarkaaga jooga ku boori inay qofkaan dariska ah kafaalo qaadaan oo ay wax siiyaan wallahu aclam waa tahay jazaak allah sheekh su-aalaha ayaa soo noqday laakiin zaynab waxay tiri walaalkay waa 80 jir waa gabadhi tiri ma ka soomi karaa sonkorna wuu qabaa marka arrintaas waad ka hadashay oo ku noqosho uma baahna taas oo sonkorta qofka qabo iyo waxaa looga baahan yahay soonka waad ka hadashay waxaan kusoo gabagabanaynaa gabadhan sawda oo qodob ramadaanka ka baxsan ka hadashay oo tiri sheekh sidee loo bixiyaa sakada dahabka sekada dahabka su-aal ku celi waxaad tidhahdaa ma xulliba ma dahabka adigu aa ku labisatid oo beersanaalka abaa mise waa dahab aad dhaqaale ahaan u haysatid iyo ganacsi iyo wax la mid ah wayna maqlaysaa waxaan filayaa inay kasoo jawaabto hadduu yahay marka anaaba ka jawaabaya hadduu yahay kan laysku qurxiyo seke ma leh seke laguma leh hadduu yahay mid ay iyadu isku qurxiso intuu doono hala ekaado culimmadu khilaaf badan bay leeyihiin laakiin anigu waxaan ku qanacsanahay madhabkaas qaar baa waxay yidhahdeen 85 garaam wixii ka badan waa laga rabaa seko anigu ma aaminsani xulliga in laga rabo seko qurux waxay ugu talagashay iyadu in labisato ay ku xaragooto intay doonto hala ekaato wixii lacag ah oo dhaqaale ah oo kayd ah oo dahabka waayadan dambe waxaa loo gataa in la kaydsado oo dhaqaale ahaan lagu safe weeye macnaha meel wax lagu kaydsado sida akoon kuu furan oo lacag ku shubatoo kale weeye kaa hadduu yahay sanad walba qiimihiisaa la qiimeynayaa 2.5% baa laga bixi $200 oo kasta waana inuu gaaraa horta marka hore nisaabka ah 85 garaam waa inuu ka badan yahay markuu 85 garaam ka badan yahay baa sekada ku waajibaysaa 85 garaam iyo ka badan macnaha 84 hadduu yahay laguma leeyahay laakiin 85 garaam waa lagu leeyahay iyo wixii ka badan waxaa lagu yeelanayaa qiimihiisa hadduu kunkii dollarba $25 baad bixinaysaa 10,000 oo dollarba waxaad ka bixinaysaa $250 adigu saasaa u wadaysaa xisaabta 100,000 waxaad ka bixinaysaa $2,500 adigu 2.5% ku dhufo intuu qiimihiisu noqdo marka waa tahay sidaasaan su-aalaha weli soo socdo marka intee in leeg baad sheekh ku dari kartaa waqtigeenii waa la gaaray 5 minute 10 minute waa ugu daraynaa insha allah waaya dulmadiid su-aashaada soo daa waxaa dadku intooda badan ay hadda ay ka walaacsan yihiin dad badan ayaa masaajidii iyadoo la xiray waxay isugu tegayaan guryaha oo jameeca ay tukanayaan waxaan arkaynay Nairobi oo kale dabaqyada korkooda dad badan oo isugu tagayo jameeca ku tukanayo halkan Alberta iyo Canada waa la sheegay dad guryaha isugu tagayo oo xaafadaha ku tukanayo maxaad sheekh dadkaasi kula talin lahayd waxaan rabaa inaan fahamsiiyo marka la leeyahay dadku ha kala fogaadeen oo ha is ilaaliyeen say muhiim u tahay adaa lagu danaynayaa diinta islaamka khalad ha ka fahmin ilaahay ma rabo wixii ku dhibaya ilaahay wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj ilaahay diinta dhib idinkagama dhigin buu yidhi wuxuu kaloo yidhi yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay sahal buu idinla rabaayo culays idin lama raba iyo dhib salaad baan soo tukanayaa marka naftaydaan khatar gelinayaa yacni waxaad u baahan tahay inaad fahamtid maqaasida shariicada naftaadoo la ilaaliyo bay shareecadan usoo degtay qofkii ku dilo waxaa la xukumay in la dilo naftaada in la ilaaliyo waxaa la ogolaaday inaad gaalnimo ku dhacdo man kafara billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan walaakin man sharaxa bilkufri sadr yacni naftiisa inuu qofku ku badbaadiyo xataa gaalnimo inuu ku dhaco baa loo ogolaaday wax ka sokeeyana iskaba dhaaf salaada marka laba masalo iyo isaga kiin khaldamin salaada adigaa lagugu leeyahay waa fardu cayn inaad tukatana waa lagaa rabaa waa farad masaladaas khilaaf male kow qodobka labaad oo la raba inaada ku khaldin waxa weeye inaad jamaaca ku tukatid waa sunna mu'akada sunna mu'akada macnaheedu maxay tahay waa wax la jecel yahay aad loo ammaanay laakiin haddii laga tago aan la dambaabayn ma ujeeda qofku gurigiisa hadduu ku tukado awalba gurigiina waa ku tukan jirteen haddana gurigii masaajidka haddii laydinka xiray meesha isugu tegaysaan jamaacadeedu kamaba duwanaba jamaacada aad guriga salaada aad gurigaaga ku tukatid marka haddaad jamaaca rabtidna reerkaaga la tukoy carruurtaada haddaad furaadaa rabtidna waa lagu ogolaya keligaa tuko laakiin naftaada riski ha gelin iyo khatar waxaa jirta baab dhan oo salaada ka mid oo la yidhahdo salaatu alkhawf
oo adoo ordaya la tukado oo haddaad wax ka baqdid laga joogo ibnu cabbaas baa mu'adinkiisii wuxuu ku yidhi masaajidka radia allahu canhu markuu marayey ashhadu anna maxamedan rasuulullah xaya cala salaa intuusan dhihin bu wuxuu yidhi waxaad tidhahdaa an salluu fii buyuutikum ama waxaad tidhahdaa asalaatu fi rixaal guryihiina ku tukada dheh roob yar baa da'ayey dhiiqadaa marra buu yidhi inay soo dhex maraane intaa ku dheh marka dhiiqadii baa lagaa ilaaliyey roobkii baa lagaa ilaaliyey jawigii adkaa baa lagaa ilaaliyey cudur fa kayfa ra'yukum marka cudur hadaa min baabi owla baqdin laga baqayo inaad dhimato baa lagu yidhi gurigaaga joog waa laguu daneeyey adigu ha is halaagin walaa tulquu biaydiikum ila tahluka culimo badan baa ka qaatay aayadda inkastoo ay ka hadlaysay sadaqa ka hadlaysay haddana inuusan qofku naftiisa halaag ku tuurin marka qofkaasi waa qof khayru mas-uul ah qofka aadaya dadka dhex gelaya waa qof khayru mas-uul ah oo aan dan ka lahayn naftiisa dadka kalena naftooda aan dan ka lahayn waxaan rabaa inaan kelmad adag ku daro haddii aad cudur intaad sidid aad diidid inaad dhegaysatid awaamirta lagu siinayo aad soo qaadid oo qof ku ridid oo qofkaas uu u dhinto amaam allahi waa lagu weydiinaya saa la soco qaatil baa tahay haddii aad adigu soo qaadid intay isqallajisid cudur aad soo qaadato adigu u dhimatidna qaatilu nafsii baa tahay la soco ilaahay waa ku weydiinayaa ma helaysid cudurdaar masaajidkii inta lagaa xiray baan guri kusoo tukanaynaa oo yaa kuu sheegay gurigaas inuu nabad qabo adigu inaad nabad qabtid yaa kuu sheegay hay xaqiiq sheekh arrinta masaajidka ayaan ku jirnay jameecada walaal cabdiraxmaan muuse wuxuu soo qoray sheekh ramadaan ayaa galnay masaajidna ma furna waxaan joognaa waddan islaam ah diintu maxay ka qabtaa cibaado la'aan ama beydkii alle oo afar jamco xiran marka waa isla tiibuu ka hadlay hadda aad ka hadlaysa diinta islaamku wixii daruuro ah dembi kama yimaado afar jimco iyo boqol jimco waa isku mid haddii musiiba taallo musiibada waa la iska ilaalinaya nafta bini aadamka in la ilaaliyaana ka muhiimsan masaajidada in laysugu tagoo la cibaadaysto waxaa ka muhiimsan in ma garanaysaa ilaahay markuu masaajidada ka hadlayay wuxuu yidhi fii buyuutin aadina allahu kelmadda ilaahay isticmaalay xikmadiisa ilaahay wuxuu ogyahay waxa dhici doonoo dhan aadina allahu an turfaca wayudkara fiiha ismuhu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walasaali rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illahi waiqaami asalaati waitaa'i azakaah yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar ilaahay subxaana wa tacala ayaddaa wuxuu leeyahay ilaahay guryo uu idnay ogolaaday in la qurxiyo la dhiso la kor loo qaado oo shacnigooda iyo qadartooda la weyneeyo oo markaa ilaahay dikrigiisa habeen iyo galabba ay ku xusaan rag aan ilaahay iyo xuskiisa iyo salaada iyo zakada aysan ka mashquulinayn adduunyo marka ilaahay ma dhihin guryaha alla wuxuu amray ilaa in la tago ma uusan dhihin dad badan baan xataa lagaba rabin inay yimaadaan haweenkaa ka mid a waxaa ka mid a dadka jiran haddana marka cudurdaarkii kuwaasi lahayn oo sharciga ahaa mid la mida adiga lagu siiyey oo ah waa la baqayaa marka masaajidka xiran ilaahay baa xiray adigu ma aadan xirin walaa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay naf kuma kallifo wax aan iyada gacanteeda ku jirin maadaa adigu cudurka wada oo keenay maya yaa xiray ilaahay baa xiray uddaa marka ilaahay markuu furo baynu ku noqonaynaa insha allahu tacaala waayahay raxmo waxay tidhi haddii aan guryaheena ku tukanayno ajarkaygii ma leeyahay nacam maasha allah allah yaxfad qofkaasi qof wanaagsan oo caqli badan wey qofkii ficil samayn jiray xilligii uu caafimaadka qabay oo nabadda qabay oo adduunku fiicnaa masaajidada qofkii tegi jiray oo hadda ay ka xanibtay arrintaani sidii bay ugu socotaa salaaddii jamaacada ahayd oo u tegi jiray sidiisii bay ugu socotaa qof alla qofkii ficil khayra samayn jiray oo cudurdaar uu ka xanibo oo awooddiisa isaga wax ka baxsana ay ka xanibto ajrigiisii ilaahay subxaana wa tacaala deeqsinimadiisay ka socotaa way u socotaa marka dadkiini masaajidada tegi jirayow ha walwalinina jamaacaadkii waa laydiin qoraya haddaad 3 salaadood ku tukan jirtay masaajidka 3dii weli waa jamaaca waa qoran tahay haddaad 5taba ku tukan jirtay 5tiiba waa kuu qoran tahay adoo weliba gurigaaga jooga baad ajrigaagii laftigiisii helaysaa iyo kasii fiican marka allah ku barakeeyey gabadhaas waa gabar fiican waa ilowsanaa way xasuusisay ilaahay ha ku xasuusiyo amiin amiin sheekh gabagabadii ayaan adig ku siinaya kusoo dhawow bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaalayaal
meelaad horta joogtaanba ramadaan mubaarak ilaahay ha idinka aqbalo inagoo dhan ilaahay hayna ka aqbalo ilaahay ikhlaas haynoo ka dhigo camalka soonkii aynu u baxsanno aakhira ilaahay subxaana watacaala ha ka dhigo soomku labada shay oo looyarka qofka u noqda aakhira ayuu ka mid yahay maalin dhaweyda youtubeka cajaladan geliyey waxaan ku qoray hire your lawyer oo qur'aanka aan ka hadlayay soonkuna waa looyarka labaad labadaasuba qofka way u doodaan jannada albaab gaaruu ku leeyahay aad ha loo ilaaliyo axkaamtiisa waxyaabaha jebiyana ha layska ilaaliyo waxyaabaha nusqaamiyana ha layska ilaaliyo waxaad ogaataa nebigu sal lla ly slam ibnu cabaas iyo saxaabada marka la weydiiyey kaana ajwad annaas dadka oo dhan wuu ka deeqsanaa bay dhehen haddana wa kaana ajwad maa yakunu fi ramadaan wa ajwad maa yakunu fi ramadaan xiina yalqaahu jibriil wa yudaarisuhu alqur'aan jibriil baa u imaan jiray habeen walba markaasuu qur'aanka ka dhegaysan jiray nebiga sal alla ly salam xilligaas isaga ah oo ramadaanka ah wuxuu kaga dheerayn badnaa sadaqada iyo deeqsinimada min arriixi almursala dabaylaha la soo diro oo ilaahay soo diro oo si degdega qaaradka qaarad isu dhaafa kuwaasuu ka dheereeyey nebigu sala allahu aleyh wasalam oo khayrka iyo sadaqada uga dheereeyey marka bishaanu waa bil sadaqo yaan la ilaawin bishaanu waa bil qur'aan waa bishii qur'aanka la soo dejiyo ilaahay ku fadilay bishaanu waa bil duco oo ducada aad loo aqbalo waa bisha toobadkeenka intaas afartaas waxaa ku darsataa rootiinkaaga maalin walba a ku darso maalin walba ilaahay u noqo u toobadkeen maalin walba ilaahay bari maalin walba ilaahay subxaana watacaala dartii wixii aad awoodidoo sadaqaa la bax maalin walba qur'aanka akhri intaasaan marka kusoo koobayaa masaajidada xiran ilaahay baa xiray isagaana furi doona waxba yay idin dhibin taraawiixdiina wada tukada intiina isla joogto guriga wada joogta wada tukada haddaad keligaa tahay keligaa tuko sideedaba waxay ku fadli badan tahay sunnadu guriga in lagu tukado gurigii baadna joogtaa ku tuko ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa aafada iyo cudurka wareegaya khaasatan waddankeennii soomaaliya inuu ilahay dhinac ka mariyo ilaahay inuu ka badbaadiyo aad iyo aad iyo aad baan ugu baqaa waddankaas maxaa yeelay ma haysta waddamo dhaqaale haysta oo lacag haysta oo xoolo haysta oo caafimaad haysta oo wax walba haysta buu digada ka dhigay 50,000 oo qof baa ku dhimatay maraykanka 2 bilood wax ka yar milyan dad ku dhowna waa jiran yihiin oo cudurkii baa ku dhacay weliba waa inta la testgareeyey ama faxsiga laga qaaday intaan la aqoon war lagama hayo mawjeeda marka ilaahay subxaana watacaala idinkoo dhan ha idin xifdiyo annagoo dhan ilaahayna badbaadiyo ramadaankana allah ina ka aqbalo taqabal allahu mina wa minkum صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين جزاك الله خير شيخ عبد الصالح حسي هذه أدبك يا جماعة علنايا. sidoo kale mahadsanid. daawadayaal aad iyo aad baan adinkana idinkaga mahad celinayaa ka qayb qaadashadiina su'aalo dhowra oo sheekh uu ka jawaabay ayaa aad na soo weydiiseen marka su'aalahaasi waxaan idiin sheegaynaa videogaad ku noqon kartaan sheekha waxaa looga baahan yahay jawaabihiina wuu sheegay marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin su'aalahiini iyo ka qaybgalka iyo intiina daawanaysayba insha allah videoga oo dhammaystiran ayaad mar dhow ka heli kartaan youtube-keena madasha furan la socda madasha furan iyo soomaalida canada subscribe nasaara waan idin mahad celinayaa ramadaan cream soon wanaagsan hala adkaysto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu